السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدل مالي وناكسن سيدو كله كلنتي وناكسن كل سو دواد برامج كنا ورجيس سر وبوع عن سنة وانا سمينا قدام بدي سبورتس وجودن بابريس وانا إنجليز كشكوين كل كجيران اللي مانشستر يونايتد كلن وجودن بأستون فيلا لا يعني قلك لبس كسل دقيستي أمن حما بريمير ليج جرتا اللي تنهاج دبعا وحكي حنا خصني وحي لو سميه sidoo kale macalinka ingiriiska hogaamiyay Carlisle wuxuu leeyahay Janis Alessio ninkaas Spain markii la aada caawa iyo kulamada ciyaar doon laga hadlaa ay laminaya maal mustaqbalka waxa laga filan kara saameynta uu la imaan kara numberka 10aad la siiyay Talyaaniga dil aad Inter lagu dhageen Simone Inzaghi waxa la gudoomiye ku xigeenka Inter Milan ninka lagu magacaabay Zanetti iyo qolooyinka xagjiriinta Altaras ka xiriira ka dhaxeeyay marka Inter waxa laga yaabaa in la ganaaxo baaritaana socdo sheekooyinkaas ugu waaweyn fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xiran muuqaalka noo la gareeya marka hore intaana Beberis ku bilaaban xal waxa la ciyaaro kulamadii UEFA Nations League la ciyaaro iyadoo Holland iyo Hungary warbadhac kula tageen Jarmalkana Bosnia laba gool ay kaga badiyeen qaybta lagu tartamay ku guuleysiga horyaalka ee loo yaqaan League A haddaba taageerayaasha Liverpool iyo waxa la leeyahay hadal hayntii baraha bulshada ka dhashay waxa ka xanaaqatay baraha xulka Holland Ronaldo Koeman taageerayaasha Liverpool waxay sameeyeen Van Dijk waxay dhan waa mahadsantahay waa noo nasanaysaa kadib markii xal casaan uu qaatay qaybtii dambe ciyaarta digniin la siiyay digniin kale uu qaatay Ross uu qaatay 33 jirkaan waa markii ugu horeysay waayay ciyaarada xulka Holland asigoo u ciyaaraya casaan uu qaatay inkastoo Holland guul darey ka badbaadan Dumfries shabaq uu gaaray haddana kulanka xigo 3 maalmood kadib ee la ciyaaraan Jarmalka kuma lagu yeelan doona Van Dijk Virgil van Dijk Liverpool soo aadana siinuu galaya kadibna waxa la weekendiga kulanka ee la ciyaari doona Chelsea 20 October asigoo nasto ciyaar doona marka Liverpool waxay dhan Van Dijk waa mahadsantahay shaqo fiican qabatay Ronaldo Koeman aad u xanaaqay ciyaariyahan wal experience oo kala Van Dijk ma uusan ka filin in ficil noocaas kale uu sameyn karo waliba Van Dijk oo kale waa ciyaartoy aad isku ilaashan markuu digniin qaatay daqiiqadii 70 xoogaa ahayd waxay ahayd inuu isdajiyo haddana wax yar kadib isla markiiba qalad kale u galay taasoo keentay Ross in la sii marka Koeman si toos Van Dijk ma uusan u abaanan laakiin wuxuu dhahay ciyaartoyda wixii aan kula balamay way ka soo bixi waayeen oo ku aadana markasta inay taxadir badan sameeyaan ayna ka go'naatay inay computer ku noqdaan xulkooda si uu caawin lahayn maadaama bishii dhanba laga yaabo 2 in la ciyaaro marka warkaas la fahmi kara xoogaa Van Dijk ku duraa degdeg iyo xalaq qaadi casaanka uu qaatay laakiin by the way waxba laga ma qaban kara hadda Virgil Liverpool ku soo laabana wana san doona kulanka Chelsea isku diyaarna Holland ayaga laga rabaa si isku maareen laayeen ciyaarta talaadada ee la ciyaar doona Jarmalka without Van Dijk la ciyaar doona marka kulankaas barbardhac Holland ee galeen waxay ka dhigantay haatan 5 dhibcood ay leeyihiin iyo 4 kulan ciyaaraan dhanka kale markii la Jarmalkana xalay waxay safar u aadeen dhankaasi Bosnia Herzegovina waxay laba gool halay kaga bani aydo ciwaanada u qaatay weeraryahanka Stuttgart u ciyaaro ninka lagu magacaabo Dennis Undaf oo hore Brighton ugu ciyaari jiray laba gool shabaqa gaarsiiyay labadii halkaas badan Jarmalka waxay kaga dhigantay groupka 7 dhibcood ay leeyihiin waxayna haystaan Janis kaste uu soo bixi karaan marxaladda xigto maadaama ay ciyaarta xigta Holland la ciyaaran ay ka badiyaan ama ay barbadhac la galaan Jarmalka inay haw kaalin koowaad ku soo bixi karaan si ay semifinal ugu gudbaan ama quarter final ugu gudbaan maadaama labada xul ugu dhibca badan group kasta ka soo baxay marka ciwaanadaas Nations League xalay ka jirana soo qaadanayna bal markaana soo qaadana sheekooyinka Ingiriiska iyo Berberiska waxyaabaha ku xidhan xilli ninkii Van Dijk aad u xanaaqay Van Dijk kaliya ma ahan maamulka United ciyaartoyda waa ka xanaaqeen Premier League waxa la amni xuma taalo Philip Bag wuxuu ka mid yahay garoomada Premier League ugu saameynta badan kooxaha waaweyn ee ku ciyaaraan ciyaar adag oo Man United dhex maraysa si laga warqabay Aston Villa barbadhac ku soo ilaad kulankaas intaan la ciyaarin ka hor waxaa dhacday in garoonka Philip Bag qolka labiska ee Manchester United inta la imaaday jiba lagu xiray oo codka sirta laga dhageysan karo kadib waxaa dhacday Manchester markii qolka labiska soo galeen wax kasta Van Dijk uu dardaaran ciyaartoyda si kulankiisa ugu dambeeyay loo arkay hadii laga badin lahaa shaqada waa laga raacdeen lahaa marka wax kasto ciyaartoyda United macallinkii staffkiis dhahan kulli inta la duubay ayaa waxa la soo galshay baraha bulshada waliba Manchester aad kaga xumaadeen waxayna dhahan arrimo security oo waxa waaye dabcan waxay dhahan dhanka markii la eego xadgudub weyn oo ka dhacay Premier League sidoo kale hadal haynta waxay noqonaysaa le hadda markii la fiirsho baaritaan la sameeyay Aston Villa waxay dhahan wax loo dul qaadan kara ma ahan waxaan sameeynaa baaritaan adag si aan u ogaano sababta keentay laakiin qolooyinka Brancastereska oo Brankiga sameeyay waxay dhahan qof China ku nool wuxuu dhahay anaaba qorshaan ka dambeeyay nin China ku nool waxa leeyahay dabcan wuxuu sameeyay team la shaqeeyana soo galeen gudaha Philip Bag gaar ahaan dressing room Manchester United coday ku xireen microphone si loo dhageystana wax kasta u dhahay marka ninkaas wuxuu dhahay Manchester United aan taageera Branki leeyahay hada wax aan sameeynay laakiin wax la aqbali karo ma Branki ma noqon karto for security waxa leeyahay xogta kooxda in banaanka la soo dhigo waxa kale oo ceeb ku ah Aston Villa in gudaha garoonkooda dad external soo galaan oo qolka dressing roomka lagu sheekaysto wax lagu xiro hadda baaritaan la sameeyay laakiin waxa leeyahay Tenag arin serious dabka ee waxa looga dhigay Branki marka Tenag caadi u wareershan taageeraasha Manchester United hadiibo asigoo noloshiisa shaqo ee miiska saarantay Branki lagu sameeyo odaga xanaaq kala muudin laakiin waa digniin ku aadan in baaritaan la sameeyo sababta ku dhici karta in garoomada waaweyn la iska soo galo haddana xogaha kooxaha la dhageysto waxa kale Berberiska daawad ka muuqdo Carlisle
Carsley ingiriiska dabcan ka baryaa in la siiyo Janis macalinkan waa laga badiyay kulankii ugu dambeeyay ka warqabnaa si ku meel gaar wajahada u hayay ciyaarta ugu dambeysay hadda wuxuu la ciyaaraa Finland kadib November la isku soo laaban doona waa marka go'aan laga gaaray mustaqbalkiisa hadda FA ingiriiska waxay soo gabagabeeyeen qabashada araajida ama codsiga short listiga macallimiintii Carsley bedel lahaayeen November waxaa markii qaramada soo ilaadaan oo la kala tago sanadka cusub la aaday ayay ku dhawaaqi doonaan tababaraha bedeli doon Lee Carsley haduu jira favorite waa Thomas Tuchel laakiin FA ingiriiska waxay ku riyoonayaan dream coachkooda waa ninka lagu magacaabo Pep Guardiola Pepna hadda lama heli karo saa ka warqabno in la sugtaale June 2025 marka Carsley wuxuu leeyahay xitaa Pep haligu sugta Janis halisi u taagan ninkan xiran aan si hogaamiyo ingiriiska marka sheekooyinkaas Beberis ugu muhiimsan qodobada goosibka aan soo qaadanay ciwaanka ugu weyn waxa qaadanaysa Arsenal oo duulaan ku qaaday kooxda Bournemouth laba ciyaartoy ay ka rabaan ninka lagu magacaabo Sameeyo la isla arkay bariyaan kooxo idil baad goob ugu jiraan ninkan madaalaha ee Ganeska ee garbaha weerar ka duulo ayay Gunners ka doonteen intaas kaliya kuma ekay sidoo kale waxay ka rabaan ninka lagu magacaabo Milos Girkis oo 20 jir garabka bidix difaaca ka ciyaara Hungarian ay ka rabaan iyo Ganes kan Sameeyo oo 24 jir labadan ciyaartoy Arsenal ka rabaan Bournemouth inay Janaayo ka soo qaataan si awoodooda ugu dhameystiraan sida code offside ee daabacayso dhinaca kale kooxda Newcastle macalinkeeda Eddie Howe 46 jir wuxuu sheegay inuu sii joogi doono kooxda inkastoo hadda uu ku jiro macallimiinta short listiga soo galeen ama safka ugu dambeeya soo galeen qabashada xulka Ingiriiska sida Telegraph ee daabacayso dhinaca kale Kobe Mino oo 19 jir asiga wakiiladiisa waxay qirteen Man United inay sii joogaan qandaraas inuu ka qaadan doono wiilkan tayada wanaagsan sida shabakada Min ee daabacayso dhinaca kale kooxaha Barcelona iyo Real Madrid labadaba xiisa gaar ah ay u qabaan Isbaanishka garabka bidix ka ciyaara Alvaro Fernandes oo 22 jir kaasoo Man United lahaan jirta laakiin xagaaga dhawaa Benfica ay ka iibiyeen haddana wacdara dhigay sida shabakada The Mirror ee daabacayso dhinaca kale Christian Eriksen oo 32 jir wuxuu rajeynayaa kooxda Manchester United inuu sii joogo haddii ay soo gali waasan wuxuu dib ugu laabanaa kooxdiisii hore Ajax xilli qandaraaskiisu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan sigada san ee daabacayso dhinaca kalena Joel Matip difaaci hore ee Liverpool Cameroon oo 33 jir ah waxa lagu wada ciyaareen isaga fariisto todobaadkan gudihiisa sida dabcan warbaahinta caalamka hadal hayso dhinaca kale tan Manchester City macalinkooda Joseph Pep Guardiola oo kamid ah musharaxiinta qabanaya xulka Ingiriiska waxa la jagadan hadda kama jawaabi doona Pep inuu qabanayo in kale wuxuu rabaa inuu tixgeliyo qandaraaska kula jiro kooxdiisa Man City oo ku eeg dhamaadka xilli ciyaareedkan taas oo waxa la dabcan ma dhici kartaa in Pep go'aanka uu isbedelo oo qabto Ingiriiska ama inuu City sii joogo asiga laga rabaa xilli Man City haatan Telegraph ilaa waxay soo heleen agaasimihii dabcan bedela taksiga Petersgen waxaana bedelay Hugo Viana oo dhanka Sporting Lisbon ka imaanay dhinaca kale Everton waxay diirad saaraan soo qaadashada ciyaaryahanka reer DR Congo lagu magacaabo Salis Mavumba oo 26 jir garbaha ka duula ka tirsan Stuttgart bisha Janaayo ramaan sida Insider ee daabacayso dhinaca kale macalinkii hore kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo 52 jir ah maalmo ka hor wuxuu iska diiday qabashada jagada xulka Denmark wuxuuna sheegay haatan inuu wada xaajood kula jiro koox weyn oo Yurub ah xiise gaarna u qaba dhanka maamulka naadiyada sida shabakada Tipsdale lagu magacaabo gudaha Danish ka soo baxday ee daabacayso dhinaca kale Liverpool waxay doonteen difaaca dhexe 18 jirka u ciyaara kooxda Palmeiras ee lagu magacaabo Victor Reis kaasoo ay rabaan gacantiina ku soo dhigaan laakiin kooxdiisa Palmeiras waxay dul dhigaan lacag gaarayso 84 milyan oo lacagta pound-ka ah sida Football Insider ee daabacayso ugu dambeyntii qodobada ka kooban gudaha Ingiriiska laga soo daabacay waxa qayb ka ah Rival Plate ayaa ka codsatay kooxda Man City in heshiiska amaado kula joogo wiilka lagu magacaabo Galowdi Ejeveri loo dheereeyo wiilkan 18 jirka ee City bishii Janaayo ee sanadkan ka iibsanay Rival Plate laakiin waxay dhaheen sii heesta ilaa ay dabcan sanadkan inta ka dhiman laakiin hadda waxay doonaysaa kooxda Rival Plate inta laga gaaray Janaayo 2025 hal sano wiilkan ama inuu kula joogo sida shabakada TYC Sports ee daabacayso bal markaan taga dhankaas iyo gudaha dabcan Spain sheekooyin ka jiraan ayadoo ciwaanada daawada noqonaysa Lamine Yamal numberka 10aad la siiyay mas'uuliyadda uu qaadanay iyo arrimo kale laga hadlaya hadaan fiirno jaraa'idada Catalan ka soo baxaan waxa la hadla macalinka Isbaanishka hogaamiye Luis de la Fuente oo sheegay Lamine Yamal in mas'uuliyad kasta uu qaadi karo numberka 10aad la siiyay pressure aysan ku ahayn sida ku xaddan jaraa'idka caanka Mundo Deportivo Isbaanishka caawa kulan adag ay ciyaarayaan saadarteed waxa all eyes noqon doon Lamine Yamal oo numberkii 17aad ka guuray wuxuuna qaatay san ka warqab number 10 uu qaatay mas'uuliyadda Spain uu la wareego saasay tahay pressure ma saarno macalinkan leeyahay kulanka ee Denmark wajahan Isbaanishka mastawin ahna waxa lagu wada Lamine Yamal inuu kifaaxo silmada shabakada Mundo Deportivo coverka san waxa ka muuqdo Ronaldo Araujo oo soo laabtay tababar adag sameeynaayo mar dhowna gudaha garoomada lagu arki doonaa Barcelona good news u tahay marka Gavi oo soo laabtay Frank Dion oo soo laabtay Araujo oo soo laabanaya kooxdana form fiican ku jirto waxa la marka waqti ugu fiican ay difaacan Uruguay kooxda ku soo laabanaa dhinaca kale sport hadii aan fiirino ayagana waxay ka hadleen wiilka dhalinyarada ku barsiyo wareysteen wuxuu doonayaa sida inuu noqdo Puyol kale Carlos Puyol aan ka warqabno from La Masia to Barcelona to
Spain inuu guulo dahabi la gaaray wiilkan xalamaasi ka soo dalacay hadda Barcelona boos joogto ka heystaa Olympic-da adduunka wacdar uu ka dhigay national team-ka boos joogto ka helay marka ku barsi riyada fog uu leeyahay waxay tahay dabcan sidii Carlos Puyol Gerard Piqué kale Spanish kala jandiye kaga noqdeen inuu asigana kaga noqdo sidoo kale shabakada sport waxay ka hadleen Manchester City oo heereen agaasimihii bedela taxika Petrezgeno waxayna heshiis la gaareen Hugo Viana kaas oo Lisbon ka imaanay ninkan dhalinyaradan waxaa lagu amaanay shaqooyinka uu gudaha Portugal ka qabtay si la mid ah shabakada sport waxay soo qaatay ninkii Mbemba ahay oo weekend dhigan xoogaa muran abuuray jimcadii tababar wuxuu sameeyay oo gaaray xirada Valdebles ee Madrid ku sameeyay weekend dhigan waxaa dhacday ayagoo Faransiiska ciyaaraan kulan Israa'iil ay wajahayaan halkii uu xulkiisa uu daawan lahay ninkaas Sweden uu aaday night club iska aaday xoogaa waa iska soo yara baashaale marka waxaa la Faransiiska xitaa way ka niyad jabeen waxay hadii uu Madrid sii jooga it's okay laakiin mar baduu banaan aadayo oo wareeg galay waxa u dhaantay inuu Paris imaado xulkiisa uu garab istaago uu daawado laakiin ninka madax dagsi iska raadsado night club iska aaday ninkaas iyo Sweden meelahaas ku soo baashaale taas oo aad looga xumaaday shabakadaha ka soo baxaan AS iyo hadaan fiirino iyo Marca oo ninkaas ka soo baxay Madrid waxay maanta ka hadlayaan shabakada AS oo kale waxay leeyihiin Isbaanishka oo soo laabash inay sameeyaan rabaan Nations League Spanish sida ay rabeen ma aysan ku bilaaban kulan waa jirtaa barbadhac ganan kadib ciyaaraha dambe guul ay gaareen laakiin hadda waxa la hadii ay rabaan groupka inay kaalinta kuwaad ka dhameystaan waa inay Danishka meel saaran kulanka caawi wajihi doonaan waxayna soo sawireen xidiga Isbaanishka oo tababarka ugu dambeeyay sameeyeen ayadoo Morato kale to personal problems ka haysto gabadhii xaaskiis ku dhaceen oo depression inuu galo uu sheegay problemkaas dhan wuxuu gadaal iska marsay xulkina caawiya raba Lamine Yamal numberka 10aad u qaatay xitaa waxa la kulanka maamuus gaar waxa lagu sameyn doonaa Dani Carvajal oo dhaawac dheer gale kaas oo muddo sanad ka badan maqnaan doono dhinaca kale hadii aan fiirino shabakada caanka Marca waxay coverka siiyeen arrimo kala duwan gaar ahaan marka la fiirsho ninkii Koke oo kale kooxda Atletico Madrid u noqday nin legend loyal ah سعره كل ما يسرب أول مرين لسيه صدق كلو حسوا قاتين مدحونا جودون كلا ليجا إسبان هافير تبس أو شيء إن المهم إن دي رد لصار هذا كفكريست بتقبك عيارتو إذا وهنا كقيب قاتين إن كانت تكورن مان لو تكدع عتنس نكاسي جريج أو يوروبيان كلابس كإيك جودون كود يوايف الأحمر أو لسكسو هذا القاعدة سدي عيارهم فرها بدن لا يرين لها أم عيارتو إذا بتقبك كود لو جواب لها مركب أرمها سن مركب هذا لين ومهم سن صدق كلا تاني شبكة مارك وحكي هذا مركب لفير شو أخبارتكو آدم بريهيم دياس أو توبر Madrid ku soo laabtay xilli uu toddobaadka dambe uu kooxda caawin karo wuxuuna qayb ka noqonaa ciyaartooyda dhaawacahay ee kooxda dib ugu soo laabanay iyo sidoo kale shabakada Marca waxay ka hadlaan Isbaanishka oo kulanka caawa diyaar u ah arimahaas ugu muhiimsan ee gudaha Spain ka jiraan dhankaas waxaan tagaynaa gudaha Talyaaniga iyo wararka jira Talyaaniga Inter Milan culays la saaray investigation ku socda Inter oo ku aadan qolooyinka xagjiriinta Ultraska ee magaalada Milan ka jiraan iyo Inter xiriirka dhexe xiriirkan waxaa dhisaalay dabcan Javier Zanetti madaxweynaha ku xigay Inter Milan Simone Inzaghi waxa uu ku ogyahay Inter Milan waxa la qolooyinka Ultraska xiriir adaga ka dhaxeeyo magaalada Milan waxa la xitaa markii la fiirsho ciyaaraha habeenada San Siro lagu ciyaaray amnigeeda ma qumano waxa ka soo baxeen tacadiye badan oo dhacay rabshado badan jiraan dad lagu xadgudbay marka baaritaanada booliska ay sameeyeen iyo qolooyinka FIGC-ga madax banaan hadda waxa la sheekada AC Milan iyo Inter Milan Inter ay ku soo biyo shubato laga yaab in la ganaax walow Inter ay sheekooyinkaas ka fogeeyeen Gazzetta arrimahan si toos ah kaga hadleen sidoo kale tan waxay ka hadleen oo kale marka la fiirsho macallin Simone Inzaghi inay Inter garab taagan yihiin waxa la soo jeediyay Inzaghi in shaqada laga raacaday maadaama qolooyinka Ultras ka xiriir u leeyahay wuxuuna kala imaadaan la xiriirkan waagi Lazio uu joogo Lazio waxa joogan qolooyin xagjiriin oo waxa la dhahaa aad iyo aad xagjiro oo laakiin saasaytay waxa leeyahay dabcan arrimahaas Inzaghi iska fogeeyay wuxuu dhahay aniga Inter waa Interteeda shaqo kaliya qabsada ma aan wax banaan ka socdo kama warhaay marka arrimahaas xasaasiga Inter Milan ka jiraan investigation ka socdaan ogaan doonaa meesha uu ku soo ilaan doono waxay sidoo kale Gazzetta ka hadlay markii la fiiriyo kooxda AC Milan oo ka walacsan ciyaarankooda hogaamiyaha Christian Pulisic iyo kulamada saaxiibtinimo lagu daalinayo Mareykanka laba kulan oo saaxiibtinimo ciyaar doonaan waa Pochettino ciyaarihiis ugu horeeyay marka Milan waxay ogyihiin inuu u soo laaban doono toddobaadka dambe Pulisic oo daalan ciyaaraha ugu horeeyay uusan caawin karin taasoo marka Fonseca walaac ku haysa Pulisic ma ka warqabnaa haduu ciyaaraanka Milan ugu foomka fiican oo bandhiga uu sameeyay inaysan inaba caadi ahayn dhinaca kale hadii aan filino shabakada caanka lagu magacaabo Corriere dello Sport waxay ka hadleen agaasimo Gunteli warkiisu uu cadiyay wuxuu kulan la qaatay Dusan Vlahovic wakiiladiisa wuxuuna kala hadlay qandaraas ku dhin iyo mushaarka ciyaaraankan u dhimo xaaladda Juventus uu ka warqabaa dhaqaale ahaan in kooxdan ay maanis ku jirto mushaaraadka faraha badan ee bixiso Dusan iyo Juventus waxa lagu wadaa inay wada fahmaan si ay u wada guuleystaan marka Serbiankan kooxdan uu si joogo raba qorshaha Juventus wuxuu yahay December in ciyaaraankan qandaraas ku dhin uu sameeyo si sanadka cusub markii la galay xisaab xir kale Juventus u galaan oo mushaarka ninkan 12 milyan oo euro hoos u dhigo arrimahaas ugu muhiimsan marka Corriere dello Sport ay ka hadleen sidoo kale jaraa'idkan waxay ka hadleen in marka la fiirsho ciyaaraanka lagu magacaabo Di Marco oo meesha ka saaray qadiyada ku aadan ciyaartooyda Talyaaniga inay ku kala qaybsanayeen caawinta xulka Azzurri
Di Marco wuxuu waa muqadas inaan xulkeen u ciyaarno sidoo kale tan wuxuu beeniyay warar ku aadan in ciyaartooyda naadiyada diirada saareen ama ahmiyad ay siinayaan waxaana eedeyn loo soo jeediyay ka warqabno Pellegrini kabtanka kooxda Roma oo kulankii ugu dambeeyay casaan qaatay Belgium la ciyaareen 2-2 Italy galeen isla markiina hadda waxa la arkay sidoo kooxda Roma tababar la qaadanay taas waxa la markaa Pellegrini wuxuu sameeyay aad laga xumaaday waxa wanaagsaneed xitaa inuu xulkiisa la sii joogo uu daawado kulanka xigo Israa'iil ee Udinese kula ciyaaraya marka waxa la inta badan ciyaartooyda markay noqdo daacadnimada heerka naadiga u qabaan ku badan qaramada way ku sii yaraanaysaa Tutti Sportiva hadii aan fiirnankooda ayagana waxay soo qaateen wiilka wacdaraha dhigay Cambiaso oo hadee noqoto Italy xitaa gool maan shabaq u gaarsiiyay Juventus joogto ugu ciyaaro dulqaad badan oo wiilkan sameeyay ugu dambeyntiina hadda wuxuu sameeynaa Boomin wuxuuna ku faraxsan yahay booska joogtada oo labada dhinac kale Juventus wuxuu dhahay Azzurri hadda boos joogto ka yeeshid banooniga intaasaba loo ciyaaro level ahaan ayuu ka dhawaajiyay sidoo kale waxay Tutti Sportiva qodob ka soo qaateen Zaniolo oo qaranka loogu yeeray maadaama uu dabcan Pellegrini ganaaxan yahay waxa hadda dib loogu wacay Nicolo Zaniolo si uu booskiisa u galo ciyaaraankan Atlanta ka tirsan yahay kulanka isniintan in la ciyaarsiin doono u badan tahay salamada Tutti Sportiva waxay ka hadleen Lamine Yamal in numberka 10aad la siiyay wiilkii Golden Boy-ga ahay oo wixii la hadda ku soo guuleystay Eurada wacdaraha dhigay markaana darajo kale u gaar Isbaanishka numberka 10aad siiyeen si uu mas'uuliyad dheeraad u qaato قيار ugu dambeyntii waxaan soo qaadankaas dabcan markii la fiirshay saraabka ka socda Koonfur America World Cup ka lagu jiro xulka Uruguay oo wacdara dhigay waxay la kulmeen guul darro kale Peru hal gool ebar kaga badiyeen natiijadan waxay ku noqotay xulka Uruguay shock inay ku noqotay saadarteed Uruguay waxa gaadeen Peru hal gool ebar looga badiyay ciyaaraanka lagu magacaabo Aruqa shabaqa gaaray kulankan oo 2 daqiiqo ka dhiman natiijadan waxay ka dhigan tahay dhanka kala sareynta markii la fiiriyo CONMEBOL-ka in Uruguay ay u dhaceen awalba kaalin saddexaad fadhiyeen hadii guuleysan lahayn laakiin kaalin labaad la wareegi lahayn min 9 kulan la ciyaar Argentina waxay leen 19 dhibcood Colombia 16 dhibcood Uruguay 15 dhibcood Brazil waxay leen 13 dhibcood Ecuador waxay leen 12 dhibcood ay leeyihiin ugu dambeyntii aan soo qaadana caawa kulamo kala duwan la ciyaara iyadoo CR7 oo kala Nations League ciyaar doona Isbaanishka ciyaar doona bal waqtiyada ay soo galeen aan soo qaadana kulamadaas xiisaha badan Nations League la ciyaar doona waxa kamid ah Croatia Scotland kulankooda 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika halka Poland iyo Portugal kulankooda uu yahay 9:45 fiidnimo xilliga Geeska Afrika Serbia Spain waa 9:45 fiidnimo xilliga Geeska Afrika Spain iyo Denmarkna kulan adag isla waqtigaas kale ayuu bilaaban doonaa guud ahaan barnaamijkan wargeysada intaas nooga egyahay waa inoo kulan dambe haduu alla idmo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh